kulan wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada qisadii jaceyl ee mahadii maanta qaybteedii 12aad balse daawada intaan u guda galin qaybtani waxaan ku xasuusinaynaa in aad muuqaalka inoo la garayso lana sii wadaagto asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. qaybtii hore waxay inoo joogtay Mahad iyo Maryan oo wada galeen jawi shukaansi oo sarbeeb ah kaftan iyo haasawo aad u xiiso badan balse weli liisku sheeganin jaceylka midba midka kale uu qabo. Mahad iyo Maryan waxa uu bilowday sheeko taxane ah iyada oo mid walba uu midka kale u sheeganayo inuu ka helay ugu dambeyntiina waxa si rasmi ah loo yagleelay jaceyl hadafkiisa uu yahay guur. jawi degan iyo nolol jaceyl ayaa la wada galay. Mahad hadda waa nin isu diyaarinayo inuu guri sameysto oo uu guursado. Maryanna waxay u haysataa wiil wanaagsan oo dhaqaale fiican haysta oo jaceyl u muujinaya. Ma oga dhibaatada lala soo maray iyo marwadii sharafta lahayd ee uu nolosheedii iyo dhaqaalaheedii u galaaftay. Isaga dhibka ugu weyn ee haysta waa sidoo isaga reebi lahaa marwadii maandeeq ahayd ee uu ku soo meel gaaray, balse wax walba haddii uu ku sameeyay kama harayso oo waa ay daba taagan tahay waayo weli waa ay jeceshahay. markay u yara calaacasho ayuu niyada isaga dhisaa kuna yiraahdaa waan ku jeclahay waan isguursanaynaa hadduu alla yiraahdo, iyadana intaasi ayay niyada ku dhisataa. haddaba maandeeq iyadoo ka sheekeynaysa siday ahayd xaaladeeda waxay tiri markuu taleefanka iga qabo waayo waxaan dhihi jiray ilaahu ma ku dhaho lama joogeen si aan cudurdaar ugu sameeyo nafteydana ugu qanciyo. waxaan sidii ahaanaba maalin ayaa wuxuu igu yiri aan hoosta ka meherxado yacni aan ku qudbisreysto, anigana waan ka diiday waayo ma garanayo waxa ku kalifaya arintaas. aad ayuuna isku xanaajiyay. habeenkii ayaan wacay markuu dhowr jeer iga qaban waayay ayuu markii dambe iga qabtay. waxaan ku iri qaali guurkayga shuruud lagu mixirayo xataa aaba anaa u sheegayo lacagta fadhiga anaa qeyb bixinayo reerkana ku dhahayo lacag ma haysta ii guuriya. Mahad fadhi iyo sariir midna kaama rabo kaliya aan nolosha wadaagno inoo shaqay waxaad hayso ayaan ku qanacsanahay. wuxuu igu jawaabay wax jaceyl ah iima qabtid waayo imaadan diidaan in aan ku meherxado haddii aad i jeceshahay. wuuna igu jaray ciil ayaan dareemay tiilkiisana wuu iga qabo waayay marna wuu igu jarayay. waxaan u haystay inuu xanaaqu maqan yahay sidii caadiga ahaydna uu dhowaan cudurdaar sameyn doono. waxaan islahaa wuxuu dhihi doonaa kuwa yaryar ayaa game ku ciyaaraya mobilka. subaxdii dambe ayaan Facebook soo galay waxaana arkay isaga iyo gabar sawir qurux badan soo galay. filan waa ayay igu noqotay arintaasi. waxaan isiri armay indhahaadu been kuu sheegayaan malaha ma ahan isaga ayaan isleeyahay. haddaan si fiican u fiiriyo waaba isaga oo asxaabtiisa ay commentiga ugu hambalyeynayaan. argagax iyo afariir ayay igu noqotay. meel aan jooganan waan isgaran waayay. naftu inay iga sii bixaysa ayaan mooday cirkuna inuu igu soo dumaya ayay ila noqotay. alla tanina ma ii dambeysay ayaan ku cataabay. la soco qaybta xigta hadduu Rabbi raali ka noqdo. daawadaha ilowin inaad muuqaalka laag saarto siina share garayso.